قالوا ديرانيا بعد يا بلبينك تمقشيو وحاتمي داران كيدي له عيد ولشيكي ودارتي قركوبا ديدين ديرانيا عيد مديدو ديرانيا عيد مديدو ديرانيا عصودون تايا عدو دوت كويمت كوانا قدعشي عنكو بسم الله الرحمن الرحيم واكن قبلي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بسنكيو صلي قباتها لغو بريا وبركة بيران وحن لغو بلاضين بسم الله هي وحن رضائنا كبيرا بدر واتغانين إلي باور رياضهي بيبها اللباح بيسيدي وحقوق بودا بغليها سيديس وكالي بالا ليضهي بارود تقورتي ريدان لوغا كالا بريي الله باريغي وعدوتوكا بيضا أفرتا برتي أنا ربي بوما كغاسي أفر كالي بيكتي نلوشا يباقا نبادد أرقب لو بلاراني أدعيت صوب حداتهي بريال أقول ياغي بركو تالله رجادي بلشادة باتيهي وبرتي نوروليدي الله وان بلايدو كهلي والقوب بوغي أفرتا برتي أنا ربي بوما كغطوري أفر كالي بيكتي نلوشا يباقا نبادد برشي وناق لغا ربو صوب برياها باسكيو برون با اسكالي بلاها قادي برواقضو هدي اي دعدو وعانا لغا بوحو قار بوقايا جيرا انتي بروف ka qaadaan isbarrijiyaha binsanka laga suraayay madaxweyne bariya ilaah maanta lagu begiyo hooy baaqa soo raac cidla bahala joogan war hooy baaqa soo raac cidla bahala joogan kadir بسم الله الرحمن الرحيم المقعي هو أحمد سعيد حسن جبريل كاترسن أورو كبدر هورينتا كوباد كوحدة لباد إنو كوباد هالكا محقوق أبانا إياه أفري كوسا عبسان مرحلات دي تراوش تمركي وركو جبتي إيو تاعي حتى قشي بسم الله الرحمن الرحيم وبلابيا بسم الله الرحمن الرحيم دول مقيو حمانتي لداف دالنا دي هوري تراوش واحد دي دانيد عدو كسيدا حرقوب لي تماشادا يان لو ديافدي فرحات bay la daateen haday shalayto diideen farxad bay la daateen haday shalayto diideen dooroonayaal baa u kacay nuur la soo diray diiwaan la raacayo iyo database gale oo loo dihnayd baa la furay dawgi nololeed dalkana reer Puntland baa iskale daayin mahadii ninkii diidan waa la arkayaa meesha uu dago ee madaxweyne daadii ninkii didaya yeelkii waxaan ka hadlahayaa dhaqan ahaan bulshadani si taariikhdii ay ku soo noolayd in ay leedahay habdhaqan xeer gaar u ah oo ay iska leedahay oo Soomaalida kale ayna la metelin waxaan ka hadlahayaa habdhaqanka bulshadani ay leedahay bulshada waliba buugiyo baa lagu dhigaa jira oo been ka sheegine bulshadii Puntland aan idin bilaabay wax ilaahna barayo marna baaba'ayn iyo sharci noo dhignaa iyo dhaqan buuxada jiray oo inoo bilaabeen odayaasha beeshiya isim talada baashiya garaad soo bandhiga iyo suldaan bixin qalooc iyo ugaas buuxin dhimantiyo baashi golaha buuxshiyo boqor soo gunaanada bulshadii Puntland waxa taa ku baal jiray oo ballan ku qaadeen barofesoradeenni madaxdeenna bilan iyo ciidankeennana aan baqan calanka badbanaya bulshadayna beenba saddexdiisan baalood bilaash laguma keenin saddexdiisan baalood bar waliba cibaariyo cilmi lagu bartaa iyo aqli buuxa weeyaan buluugiisu waa baaqdanka bari ka soo baxay baadidoonkii qarankan u bareeray weeyaan cadaankiisu waa bilad aanan baaba'ayn iyo baray nabad taaliyo boqortooyo aan dhicin cagaarkiisu waa bilic badana labada abuuraheena waa weyn macdanta iyo batrool kale iyo beeyadeena udugale hadalkii ma badinina mana aanan bi'inina waxaan uga baxayaa bulshada iyo xukuumadda in waliba bartu jiray baashu ka jooga wareena ka baylihi in kalena waxaan leeyahay waa in yar oo aan madaxweynaha ku soo dhaweynayo caam ahaanna dalku iyo dadku sida uu isku wada yahay sida aan loo kala maarin matalaysa madaxweynaheeniyo
madaxweyne deni iyo maamulkiisa wacan baa madadii haleelo mid quraannu nahayo maqla erayadayda waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba mudanayaasha golahee matalaya shacabkee bara midigta saarow mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba mashaayikhda culus ee noo macnaysay diinta iyo macallinka qur'aanka nebi maxamed raacow mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba maqaawiirta dhaqankee marna aanan dhicine marjac loo noqdaayow mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba marwoolaya guude mar walbaba hurmuudkow ee muwaadinka dhabta ahoo mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba midka miyiga joogay mawaashiga dhaqaaye meera caanaheed iyo hilibkaanna goosada miyiga iiga keenow mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba inta aan matalayo iyo milatariga guud iyo laamaha amniga magacood ku hurudnow mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba murtidiidin siiyo macnihiina raacshay mid quraannu nahayo kala maarmi mayno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba waa mahad ilaahay halkan baanta joogno waa muqadas nabadii iyo midnimada dalkeennuba
gesigan galaabane gaadadow dhigo gumuciyo rasaas sumuciyo gantaal gumuciyo rasaas sumuciyo gantaal gesigan galaabane gaadadow dhigo igashe abaal inan gudo wanaag igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay igashe abaal inan gudo wanaag igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay hagaban hagaban haguban hagaabsan gaadhayaa dalku haguran hagaban hagamin haguban hagaabsan gaadhayaa dalku gubanimaadua geed hagaacaho midha laga gurtee gaashan dhigo goyaha ka joogsada gulufiyo colaad gabagaba dagaal gulufiyo colaad gabagaba dagaal gesigan galaabane gaadadow dhigo gulufiyo colaad gabagaba dagaal gulufiyo colaad gabagaba dagaal gesigan galaabane gaadadow dhigo igashe abaal inan gudo wanaag igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay igashe abaal inan gudo wanaag igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay haguran hagaban hagamin haguran hagaabsan gaadhayaa dalku haguran hagaban hagamin haguran hagaabsan gaadhayaa dalku haguran hagaban hagamin haguran hagaabsan gaadhayaa dalku hadiidaye wanaaga doonayow xaqayagiina dursiyay kuwii dilaaciyo kuwii xumaa hadiidaye wanaaga doonayow xaqayagiina dursiyay kuwii dilaaciyo xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow
calankaba daryeeshay dalkii iyo dadkii iyo calankaba daryeeshay rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne daalimayne rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne daalimayne xumaha diidayee wanaagga doonayow xaqayagiina duudsiyey kuwii dilaaciyo kuwii xumaha diidayee wanaagga doonayow xaqayagiina duudsiyey kuwii dilaaciyo xooga dalko xooga dalko xooga dalko xooga dalko xooga dalko dulkeennu waa dihin yahe wabiyada dilaaci dulkeennu waa dihin yahe wabiyada dilaaci haddanoo diraysaan annaga diyaaro haddanoo diraysaan annaga diyaaro diidi mayne diidi mayne haddanoo diraysaan annaga diyaaro haddanoo diraysaan annaga diyaaro diidi mayne diidi mayne kuwii xumaha diidayee wanaagga doonayow xaqayagiina duudsiyey kuwii dilaaciyo kuwii xumaha diidayee wanaagga doonayow xaqayagiina duudsiyey kuwii dilaaciyo dalko xooga dalko xooga dalko xooga dalko xooga dalko dulligii qabiilada dib waxii inoo dhig dulligii qabiilada dib waxii inoo dhigay dalkeennii ka saarte daruur caafimaado da'dayno ahaate dalkeennii ka saarte waydin dooranaynaa waydin dooranaynaa waydin dooranaynaa dalkeennii ka saarte daruur caafimaado da'dayno ahaate dalkeennii ka saarte waydin dooranaynaa waydin dooranaynaa waydin dooranaynaa kuwii xumaha diidayee wanaagga doonayo
dadka iyo waxa way tababaray soo bandhigana adig madaxweyne dadkii iyo calankaba daryeeshay rabbi haydin daaye waydin dabagelayna rabbi haydin daaye waydin dabagelayna daalimayne rabbi haydin daaye waydin يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الشجر إنه لقول الفصل وما هو بالنسل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا labaad ee daraawiishta oo maanta taariikhdu tahay 22 Juun halkan ka qalin jebinaysa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha ciidanka difaaca Puntland Sarreeya Gaas Yaasiin Cumar Dheere الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها دولة بنتلاند مدن سعيد عبد الله ابنها قلياش الدولة وطلياش مدحوينها تليها عيدا كبوليسكا قلب السلاح دمان عيدا كتوبرك وحل مايو مرتي شرفتا بعض صحافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه وحمات شرف وين نوعه إنا نلجوكتو دكسيغا توبرك عيدا مدى الحرقبلة وأنا قلت قيمك الشحريتان كحفلتي تببركي دفعتي لبعض عيدك دراويشتا وتببركي وقصوا علي دوكسية حرقبلة برن يكونتون يا أفراد وإنو ساكي هلا كان كسوا قبيني مدن الله وينه أرنتا إنو مالتي هلا كان أفردينه waxay qayb ka ahayd barnaamijkii dawladda maanta Puntland ka talisa madaxweynaha u tahay ay hor dhigtay oo ujeedadeedu ahayd ciidanka daraawiishta iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland dib u habayn lagu sameeyo dib u habayntaas oo ka kooban in ciidanka diiwaangelin rasmiya la mariyo oo baymitir ah arrintaasoo horey loo fuliyay dhammaan ciidanka halka fadhiya baymitirka mareen in ciidanka tababar la geliyo si aqoontiisa iyo xirfadiisa shaqo kor loogu qaado arrintaasoo aynu go'aansannay in lagu fuliyo dugsiyo tababareed 4 dugsi oo kala ah dugsiga Xurgoble iyo dugsiga Baran oo maanta shaqaynaya iyo dugsiga Boocame iyo kan أبقى وقعنت الله هيو لوانا هوشو ذا الضميسترايو وجيدا ذا كده ما يسيتي محبين تاسي وحي هاي سيدان هذا الشيء يعيدك لما ريب بايمترك توبركي سنفر لو قاضو قضبك صدحات وحوية
in ciidanka dib u habayn lagu sameeyo oo qaab dhismeedkooda kor loo qaado oo laga baxo dhismihii magacyaalka ahaa ee hore ciidanku u lahaa oo la helo urur saldhigga ciidanka dhismihiisu noqdo urur ka kooban 3 xorimood 9 kooxood iyo 27 unug oo ku filan fulinta waajibaadkiisa arrimahaas oo dhan ayaynu ku guulaysanay maantana halkan waxaynu ku fadhinaa dufcaddii labaad oo hawshaas la soo mariyey oo ciidanka hortaada fadhiya ay tababar ku soo qaateen dugsiyadaan hore u soo sheegay xorgoble iyo baran iyo kontoryaafraad maantana diyaar u yihiin in tababarkii loo xidho oo aanu maanta kaa sugayno ciidamadaasi tababarrada ay soo qaateen waxay ahaayeen waqtiyo badan bay kala duwan bay ahaayeen xirfado kala duwanna waa qaateen maadooyinka ay qaateen waxaa ka mid ahaa tabta dagaalka gaardiga barashada hubka iyo ridintiisa dishibliinka iyo xelajoog nidaamka dishibliinka iyo xelajoogga hoggaaminta sahanka isgaarsiinta gurmadka degdega ah ee caafimaadka iyo si wanaagsan waxa loogu tababaray ciidanka halkaa fadhiya waddaniyad iyo jacaylka dalkooda intaasaa lagu tababaray dugsiyada ciidankaas tababarkiisa waxa fuliyey saraakiil dhallinyaro ah oo macallimiin ah oo maanta hortaada fadhiya oo akadeemik ah oo si wanaagsan ciidankaa tababarkiisa u fuliyey muddadii ay gacanta ku hayeen mudane madaxweyne waxaan hortaada mahad uga celinaynaa dhammaan saraakiishii macallimiinta ahayd iyo maamulkii dugsiyadaas oo ku mintiday inay ciidanka halkaa fadhiya saaki tababarka siiyaan iyadoo muddooyinka ay tababarrada ku jireen kala duwanaayeen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa uguna ammaanaya waxaan kaloo u mahad celinayaa oo ammaan halkan uga jeedinayaa maamullada dugsiyada waxaan kaloo mahad u celinayaa maamullada mas-uuliyiinta gobollada iyo degmooyinka gobolka karkaar gobolka bari gobolka sanaag gobolka nugaal oo gacan weyn ka geystay sidii ciidankaasi tababarkiisa u fushan lahaa waxaan maanta halkan bandhigayagu yahay inaannu ku muujinno inaannu fulinay siyaasaddii dowladda puntland oo madaxweynuhu nagu hoggaaminayey inaannu fulinay ayaannu saaka halkan bandhigeeda ka muujinaynaa waxaanna ballan qaadaynaa inaannu ku fillaanno fulinta waajibaadkayaga ciidan inaannu ku fillaanno kalsooni inaannu siino dadkayagu inay nabad ku noolaadaan difaaca dalkayagana aan heegan u ahaano ma ballan qaadnay madaxweyne saasaa naga dhaba ilaahay idankiis intaasaan anigu khudbaddayda ku soo koobayaa macallimiinta iyo ciidanka tababarka galay shahaadooyinkoodii iyo wixii mudnaa waxaan gadaal baan ka bixinaynaa waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka amniga cabdisamad maxamed gallan falyatafadal madaxweynaha dowladda puntland labada gole golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka golaha garsoorka oo ka jooga gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada taliyaha booliska taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadatan gudoomiyaha gobolka bari gudoomiyaha gobolka karkaar gudoomiyaha degmada qarro iyo maamulka degmada iyo dhammaan intii ka soo qaybgashay xigeenada iyo ciidamada dhammaan waxaan leeyahay
noo tahay maalin ka mid ah maalmihii farxadda ee isdaba joogga ahaa maantoo maalin axad ah bisha Juun 2020 waa maalin taariikhi ah waxaynu hor fadhinaa ciidamo tababaro oo kala duwan qaatay 3 dugsi oo kala duwan dugsiga tababarka goble dugsiga tababarka kontoniya faraad dugsiga tababarka baran maantoodna soo helay in dalka dibaddiisa loo aado meel ka baxsan Soomaaliya in lagu qaato oo badan ay kala kulmaan ciidamadu maanta iyagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo fududeeyay inaynu helno xiriir diyaarsan iyo tababarayaal diyaarsan inay soo saaraan ciidamo ka tayo wanaagsan ciidamadii dalka dibaddiisa ku soo taabay munaasabaddan ka faa'iideysanaya in aan marka ugu horeysa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowladda Puntland oo sabab u ahaa barnaamijka tayeynta ciidamada isku dhafkooda dib u qalabeyntooda furidda dugsiyada cusub barnaamijkiisa siyaasadeed ee ugu hogaaminayay dowladda Puntland ay ahayd miradhalkeedana aynu maanta hayno waa dufcaddii labaad ee dugsiga ka qalin jebisa dugsiyada kalena waxaa jira qaybta dufcada ka qalin jebiyey oo dhammaan ku jira jiilda hore iyo difaaca dalka waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta oo qayb weyn ama qayb libaax ka qaatay tababaradii hore ay hirgalaan kuwa soo socdana diyaargarowga ku jira sidoo kale taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdiyare oo dhawaan ku soo biiray hogaanka ciidanka booliska isagana aan rajaynayno hadduu ilaahay idmo tababar aanu dhowaan ka furi doono xeradan aynu joogno iyo xerada akademiyada carno inuu isaguna uu qayb ka noqon doono ciidamadii ugu horreeyey oo si dhamaystiran loona qalabayo loona tababaro waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa tababarayaashii iyadaas oo ka qayb qaatay natiijada tan iyo risaltigan aynu hor fadhino in ay sida ay quruxda badan tahay u soo dhammaystirnaan ciidamada tan maanta ina hor fadhiya waad aragtaan tababarkoodii qayb ka mida iyo dhowlatuskay sameeyeen waxaa aragtaan agabkii ciidanka lagu qalabayn lahaa inuu diyaarsan yahay qaybta kale oo aan idiin muuqanna waxay ugu diyaarsan yihiin stoorada iyo meesha loogu talagalay oo ay markay xeradan ka guuri doonaan iyagoo dhammaystiran oo qalabkoodii hadday small arms tahay iyo hadduu qalabkii waaweynaa uu yahay iyo gaadiidkoodii iyagoo dhammaystiran ay kala guuri doonaan si ay u gutaan waajibaadkooda loo ignaday anoo aan hadalkayga badinayn munaasabadda tan muhimkeedana aan ugu talagalnay madaxweynaha dowladda Puntland in uu yiraahdo kelmadiisa dardaaranka ciidanka in uu dhiirigeliyo ciidamada qalin jebiyey iyo kuwa qalin jebi doona aan ugu talagalnay inuu halkan ka yiraahdo waxaan rabaa inaan hadalkayga aan ku soo ururiyo ciidamada qalin jebiyey in hor fadhiya waxaa laydinka sugayaa waajibaadkii iyo tababarkaa dheer ujeedkii aad marteen waxaad ka mid noqoteen oo arkaan ciidamadii dib loo habeeyey adeegooda kor loo qaaday adeegooda kor loo qaaday daryeelkooda caafimaad kor loo qaaday si dhammaystiran loo qalabeeyey waxaa la rabaa marka risaltiga iyo natiijada ka soo baxaysa inay dhiganto intaa in la eg inay noqoto ilaahay waxaan idiin rajaynaynaa guul waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aad u mahadsantiin dhammaan intii munaasabadda tan soo diyaarisay oo qaban qaabisay الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مدحوينها دولة بوتلاند لبدا قولة دولة تليها قولة عيدنكا تليها عيدنكا بوليسكا دوليها قولكا دوميها الدقمدة سراكيش كمان سراكيش عيدمدة صحافة ciidamada tababarka loo xirayo dhammaantood waxaynu ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam markii aan dhexdhexaadaya labadooda oo iga horreeyey oo ka mid ah guddiga reformka ciidamada waxaan rabaa laba qodob keliya inaan dhaho
mudane madaxweyne siduu sheegay taliyaha ciidanka siyaasaddii dowladda oo ahayd in dib loo habeeyo ciidamada dowladda puntland ayaa socota waxaa socota dacfaddii labaad ee ciidamada dowladda daraawiishta oo ku soo kala qalinjabiyey 3 iskuul oo ka tirsan gobollada puntland ciidamadan waa ciidamadii labaad qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamada reform loo sameeyo la tababaro kabacdina marka u dambaysa sidaa amartay xuquuqdooda kor loo qaado waxaan qiraynaa in ciidamada dhammaantood xuquuqdoodii ciddii tababarka badha ay noqonayaan qoladii labaad oo xuquuqdooda kor loo qaado oo ay dhici karto in 3 jeer la jibaaray xuquuqdii ay qaadan jireen dhinaca salariga raashinkana sidoo kale waxaas waxaa loo samaynayaa in la helo ciidan macno leh oo puntland kuna filan dhammaan xuduudaha puntland inay sugaan amnigooda waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa inaysan jirin ama ha noqoto dhinac kastee isku tashi puntland maaha inaysan jirin xuquuq ciidamada dowladda puntland ay ka helaan dowladda federaalka waad ogtihiin dowlad baynu nahay dhammaan xuquuqaha ciidamadu leeyihiin waa leeyihiin ciidamada puntland hadday tahay dhinac walba waxaan halkan ka sheegaynaa inay puntland isku tashi ku wado ciidamada laakiin xuquuqihii ay lahayd oo ciidamada dowladda puntland ay lahaayeen inaysan helin taas waxay muujinaysaa qayb markii la fiiriyo ciidamada dowladda soomaaliya oo la yidhaahdo waxaan aad u dhisaynaa ciidamada soomaaliya inaysan jirin dowladaha qaybtood inaan laga kaalmayn haba yaraatee dhinacan ah ciidamada dowladda waxaanse leenahay insha allahu bidnillaahi alkariim waa ku filannaa ciidamada dowladda puntland annagoo aan helin xuquuqdii asaasiga ahayd oo aan ku lahayn dowladda soomaaliya intaa markaan idhaahdo waxaan rabaa hal kelmad inaan sheego kelmaddaas waxay tahay dhammaan ciidamada puntland waxay marayaan reformkan dhammaantood reformku ugu dhib badan yahay ciidamadu ku dhib badan yahay kuwii hore ugu dhib badan yahay dowladdu ku dhib badan yahay laakiin waa loo dhabar adeegayaa waana la gelayaa haddii rabbi waxaana soo bixi doona mar walba risabtii noocaan ah iyo nooc ka si fiican qolada geela baa ku jiraayo waxay ku heesaan marka geel ku heesayaan 390 habeen oo sidkaa yahay saboorsigu waa ase kugu siman waxaan rabnaa haddii rabbi idmo inaan ku sinno dhammaan ciidamada dowladda puntland reformkan iyo tababarkan iyo in kor loo qaado tayadooda labadaba ilaahay waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu dhihi doono dardaarankii ciidamada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha ciidanka daraawiishta yaasiin cumar dheere oo ah khabiir muddo badan ciidamada u soo joogay la'aantiisna aysan wax badan ka fuleen hawsha aan wadno aad iyo aad baan u mahadcelinayaa darajooyinka ciidamada haddaan aqaanana hadday wax ka dhimayeen madaxweynaha waxaan ku codsan lahaa inuu darajada ugu dambaysa siiyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan hoggaamada ciidamada iyo intii nala shaqaynaysay oo shaqooyinka aad u qabatay waxaan kaloo u mahadcelinayaa tababarayaashii soo saaray ardada halkaan fadhida baan iyagana u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamullada iskuullada oo iyana aad ugu dhabar adeegay inay soo saaraan ciidan taya leh intaa markaan idhaahdo waxaan rabaa inaan mikrofoon ku soo dhoweeyo madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni gudoomiyaha gobolka degmada saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida saraakiisha iyo maamulayaasha dugsiyada tababarka ee baran xorgoble iyo kontoni afraad iyo inta maanta dufcadan ka qala jabinaysa ee maanta munaasabadeeda aan u fadhinno marti sharafta kale aan ilaaway hadday joogaan saxaafadda iyo cid walba maanta joogta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciidamada baambeyda si gaar ayaan u salaamayaa iyagana oo howl adag ka hayay halka ee runtii sida mas-uuliyiintii iga horraysay ay sheegeen hawsha socota waa gundhiga siyaasadda dowladda puntland ee xilligan arrabinaysa
iyadoo saldhiggeedu ahaa in la tayeeyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda oo ay ugu horreeyaan ciidamada. tayeyntaas wuxuu saldhiggeedu noqonayaa inaan tiigsanno meesha aan doonayno ee shacabkeenna iyo ummadda puntland iyo soomaaliyeedna ay doonayso oo ah inay xasiloonni iyo nabad iyo sarrayn sharci ay ku noolaato si ay ula mid noqoto ummadaha kale ee adduunka ee horumarku ku tallaabsanaya. sida dastuurkeennu nafarayo kan puntland iyo kan soomaaliyaba waajibaadka ugu horreeya ee dowladda laga rabo waxa weeye inay ilaaliso sharafta iyo karaamada iyo amniga ummadda ay mas-uulka ka tahay. shaqada ugu horraysa hadday tahay cidda gudubta waa ciidamada. sidaa la adligeed ayaa siyaasadda dowladdu waxaa gundhig u ah in ahmiyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad la siiyo dhismaha ciidamada, kor u qaadidda noloshooda, u dhammaystirka agabkii ay ku shaqayn lahaayeen si ay u noqdaan dad waajibkooda gudanaya. waxaa nasiib darro ah iyadoo malaayiin boqolaal malyan oo dollar ay uga baxdo adduunka in soomaaliya laga caawiyo amniga iyo dhisidda ciidanka, in wixii ay ka mudnaayeen puntland inaysan helin. taas waxaan rajaynayaa in caalamkana uu garto, mas-uuliyiinta dowladda federaalka hanti ay hayaan loogu dudi maayo, laakiin waxaa caalamka ka yimaada inaysan caqabad iyo horjoogto u noqon. kaas wuxuu keenayaa in dadku kala tashado. waxaan rajaynayaa in caqligu uu taliyo duruuf kasta oo deegaanada kale ka jirta, haddana cadowgu meel walba waa joogaa, dhismaha ciidankuna meel walba waa looga baahan yahay. waxaase ilaahay mahaddiisa puntland oo 21 sano jirtay oo mas-uuliyiintii kala dambaysay ee soo maray ay garteen ahmiyadda uu ciidamadu leeyihiin, in ay wakhti badan soo geliyeen 21 sano dhismaha ciidanka iyo difaaca xuduudaha puntland ee dastuurkooda uu furayo. waxaan rajaynayaa ciidamada kala duwan ee puntland inay u diyaar garoobaan inay sugaan xuduudaha puntland ee dastuurkuna farayo. inta lahayo puntland waa astaanta midnimada soomaaliyeed. puntland waa astaanta kala dambaynta iyo xasiloonnida iyo maamul wanaagga iyo dowladnimada. puntland waxa ay ku naaloonaysaa inay dadkeeda nabad ay ku noolaato, deegaanada kale soomaaliyana ay gacan ka geysato. waxaad ogtihiin ciidamo badan oo daraawiish ah inay qayb ka ahaayeen xasilinta soomaaliya iyo sidii dowladnimada soomaaliya loo soo celin lahaa. dhallinyaro badan oo saaxiibbadiin ahaa ay qayb badan ku soo naf waayeen, qayb badan ay ku soo dhaawacmeen, qayb badan ay dayac uu ku qabsaday duruufihii adkaa ay soo mareen. waxaa sidoo kaleeto ilaahay uga mahad celinaynaa oo ciidamada maanta hortayda fadhiya qayb ka mid ay yihiin qaybihii ugu difaaca dheeraa ee buuraha cadowga ka hor jooga inay maanta halka joogaan. waxaas iyo awooddaas iyo mas-uuliyaddaas aa garateen waa midda ay shacabka reer puntland ee ciroole iyo carruurba isugu jira ay maanta ku naaloonayaan, noloshooda ay ku maaraynayaan, dadkooda ay maaragtay horumarkiisa uga shaqaynayaan. puntland uu noqdo ciidan laysku hallayn karo. waxaan ku dadaalaynaa awooddeennu inta ay la eg tahay in ciidamadan ay noqdaan ciidamo ku sifooba marka aysan u gudbin waajibaadkooda kuwo iyagu ay ka muuqato
waxa ay rabaan inay qabtaan oo ugu horrayso inay naftooda ammaan geliyaan inay disibliinkooda kor u qaadaan in kala dambayntooda ay aad u kordhiyaan in hoggaankooda ay addeecaan oo ay kala dambayntu ay xoog yeelato ujeeddooyinka tababarkan laga leeyahay waxa weeye wixii maanta aad nastusteen markaad taagtikada iyo tabta dagaalka ku jirteen in mar walba howlgal aad fulinaysaan taliyaha kooxdaas wata in mar walba loo riboodgaraynayey amarku uu bixiyena lagu shaqaynayo waxa aan rabno waa intaas ciddii meel mas-uulka ah waxaa la rabaa mas-uuliyaddeeda in lagu ixtiraamo waxaa la rabaa qofka mas-uulka isagana inuu mas-uul noqdo oo waajibaadka la faray uu guto ee awoodda uu ku takrifalin labada dhinacba khaladka waa ka yimaadaan hadday mas-uuliyiintu mas-uul noqon weydo oo ay ku takrifalaan awooddooda cidda la maamulaayo waxaa ka imaanaya falcelis marka waxaa mas-uuliyadda ugu horraysay saarantaha waa saraakiisha haddii sarkaalku xumaado lama dhaliili kara askariga marka waxaan rajaynayaa saraakiisha oo ugu sarreeyo yaasiin oo ah taliyaha guud iyo saraakiisha kale ee dawladda inay iyagu ka bilaabato in ay mas-uuliyaddooda ay siday tahay u fuliyaan si ay ugu daydaan kuwa ka hooseeya waxaan rajaynaynaa inaan ka gudubno waayo badan oo duruufihii dagaalku uu habac naga geliyey xagga ismaamulka waxaan rabnaa maamulka iyo kala dambayntu inuu meel walba ka fulo haddaan joogno goobta dagaalka haddaan joogno goobta tababarka haddaan joogno goobaha kaleeta ee bulshadu ay wada ku nool yihiin waxaan filayaa sida warbixinta igu soo gaartay in kastoo halkan laga booday waxyaabaha qaadateen waxaa ka mid ah casharro ku saabsan xuquuqul insaanka iyo sida aad ummadda aad u adeegaysaan aad u dhaqmi lahayd waxaa muhiima ciidamadu inay noqdaan kuwii bulshada ilaalinaya inaysan noqon kuwii bulshada waxyeelaya arrinkaas waa muhiim mararka ah howlgalka ku jirtaan inkastoo wakhti adag lagu jiro oo cadowgii iyo bulshadii isku ekaadeen laakiin waxaan rajaynayaa inaad awooddooda yeelataan inaad kala saari kartaan bulshada iyo cadowga marka aad cadowga qabanaysaanna aad u yaraysaan khasaaraha soo gaaraya bulshada qaybaheeda kala duwan maxaa yeelay cadowga maanta aan la dagaalamayno waa cadow ku dhumaalaysanaya magaalooyinka iyo dadka dhexdiisa ururada maanta qalin jebinaya ee badar iyo uxud waxaa loogu magac daray waad garanaysaan waa ururadii diinta islaamka ee xaniifka ee maanta aan haysanno soo badbaadiyey u soo dhabar adeegay cadowga ka adkaaday maanta nimcada iyo naxariista sida lagu tilmaamay diinta islaamka aan haysanno saldhigga u ahaa waxaan rajaynayaa ciidamada maanta halka ka qalin jebiyey inay wixii ay barteen bulshada ay iyo meelaha iyo goobaha ay ka shaqayn doonaan dhexdooda iyo dadka kaleetaba in laga dhex arko ayaan aad u rajaynaya waxaan ku dardaarmayaa cadow kasta oo puntland leedahay ama kuwa ku dhex jira ee argagixisada ah ama kuwa dhulka puntland ay leedahay haysta inay u diyaar garoobaan inay puntland cadowgeeda iska dhicinayso diyaar u tahay inay awooddeeda dastuuriga ah ay ku dhaqanto soo ceshato dhulka ka maqan cirib tarto argagixisada diyaarna ay u tahay in cid kasta oo hadda xadgudub ku haysa in ay wada hadal iyo nabad hadday ku helayso ay la gasho hadday ku weydana awood ay ku soo ceshanayso waxaan ugu baaqaynaa somalilan si sharaf leh inay dhulka iyo dadka puntland ay joogto uga baxdo dhiig walaal ma doonayno darisnimaan rabnaa wanaag iyo horumar baan rabnaa waxaanan marna ka yeelayn oo dastuurka federaalkuna
qodobkiisa 142 uu farayaa in dowladda Puntland inta dastuurka federaalka ee qabyada ah loo qaadayo afti kama dambaysa inay Puntland ku dhaqmayso dastuurkeeda waxaa sidoo kale dastuurka Puntland uu farayaa in xuduudaheedu ay cayiman yihiin shantii gobol iyo degmadii Puntland lagu aasaasay dadkii deganaa ay aasaasteen waa waajib dusha ka saaran Puntland cid ka gorgortami karta oo kale oo dastuur iyo sharci uu siinayo ma jiro waxaan caalamku u sheegaynaa inay dastuurka Soomaaliyeed akhriyaan dastuurka Soomaaliyeed inay akhriyaan marka ay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay wax taraan dastuurka Soomaaliyeed wuxuu si qeexan u cadeynayaa dastuurka Puntland uu qeexayaa dhulka Puntland waa cadiya dowladda Puntland aan mas'uulka cid kale oo gorgortan iyo wada hadal ka gali kartaa ma jirto arrintaas marar badan waa sheegnay waana ku celcelinayna waxaan kaloo u sheegaynaa ururada argagixisada afraadda ka tirsan ee buuraha calmadow iyo calmiska aad ku dhuumaalaysanayso wakhtigiinni waa gabaabsi waxaan u rajaynaynaa dad deegaanadan ka tirsan hadday ka mid yihiin inay dowladda Puntland isku soo dhiibaan dad deegaano kale ka yimid oo aan nabadgelyo u imaan dalkaanna ay isaga baxaan deegaanada waxaan ballan qaadaynaa in ciddii diidda baaqeenaas wax arxana aan loo gelin ma qarsanayno waxaan farayaa ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan wixii bulshadan cadow ku ah goobta ku aragtaan ku toogta maxkamadaha dib la sugi maayo maxaa yeelay cadowga hadda jira wajiyo badan buu yeeshay waxaan rajaynayaa cadowgaas in lagu dhiirado cid kasta oo faldambiyeed ku jirta oo hubaysan oo wax fulinaysa goobteeda ha lagu toogto ciddii la tuumo waxaan rajaynaynaa in laamaha ammaanku ay si wanaagsan u baaraan laamaha cadaaladuna ay si wanaagsan oo cadaalad ku jirto hawshooda u fusho waxaan ka digayaa ciidamada kala duwan inay gaboodfal ku sameeyaan cid aan dembi lahayn waxaan ka digayaa cid aanan tuhun cad lagu hayn in xabsiyada Puntland la geliyo waxaan ka digayaa dad aan dembi lahayn in jirdil lagu sameeyo waxaan rabnaa inaan ilaalino xuquuqda dadka laakiin cadow naxariis nagama dhexayso cidday ku caddahay waxaa la rabaa si cad in tallaabo adag loogu qaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii tababarkan muddada dheer ka soo shaqaynaysay duruufaha kala duwan ku soo shaqaysay isu soo sabartay waxaan rajaynayaa wax kasta oo ka dhacay intii tababarka socday ama guddigii dib u habaynta samaynayay qabsaday ama saraakiishii ciidamada qabsaday ama saraakiishii dugsiyada maamulaysay ama kuwii la tababarayay intaba in dulqaadkaasi uu maanta yahay miro dhal ciidanka waxyaabo dadka shacabka ay dhib u yaqaanaan iyaga waa u dheef cadaadinta iyo tababaridda iyo celcelinta iyo weliba ganaaxidda ciidan intaasba waa dheef idinka ini ah oo ini toosinaysa maxaa yeelay dadkan haddaysan disciblin adag yeelan oo ismaamulin naftooda hala ku jirta haddii goobta cadowga markuu joogo sidaad maanta isu maamulinaysaan aad u kala amar qaadan weysaan dee waad ogtihiin khasaaraha idin soo gaaraya haddii idinka khasaare idin soo gaarana bulshadoo dhan buu soo gaaraya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intii gacan ka geysatay gobollada khaasatan ay ku yaallaan dugsiyada tababarka ama degmooyinka ay ku yaallaan guddoomiyaashooda degmo iyo gobol sida ay ula shaqeeyeen iyo bulshada deegaanadaas ku dhaqan sida ay ugu sahleen ciidamadaas kala duwan inay hawshooda u gutaan waxaa inoo dardaarana oo inoo ballan ah inaan ummaddeenna difaacno sharaftooda
maalkooda cirdigooda waa inaan puntland mar dambe aysan ka dhicin in gabar reer puntland lagu kursado aad bay muhiim u tahay markay ciidamadu xoogaystaan awooddooda xoogaysato cadowgeennu kaan ka hadlayna waa kan dibadda midka gudaha ee tuugga iyo warxamotashiilka iyo fidnowalaha midka doonaya inuu bulshadaan horumarkeeda hor istaago idinkaa iyadana u xil saaran walow ciidamada booliiska inaga sii fara dhuudhuuban yihiin laakiin ciidamada daraawiishtu waxaa la rabaa waa qayb ka mid a ciidanka guud ee dalku leeyahay hoostaga taliska guud ee ciidamada puntland oo dhan oo midka ah waxaa la rabaa wada shaqayn joogto ah siday hadda u wada shaqaynayaan waxaad ku ogtihiin ciidamadii daraawiishta hadda waxay ka howlgelayaan magaalooyinkii waxay joogaan oobiyadii waxay ka howlgelayaan magaalada garoowe oo ciidamadoodii booliiska tababar loo soo qaaday waxay ka howlgelayaan magaalada gaalkacyo aad la socotaan oo amnigeed wax badan ay ka beddeleen dufcadaha aan la sheegin weeye dugsiga kontoni afraad waxaan filayaa waa dufcadii saddexaad hadda maxaa yeele laba dufcoo ka horreeyo hadda shaqo ku jira ayaa jiray dufcadii saddexaad weeye kontoni afraad baran waa dufcadii koowaad halkana waa dufcadii labaad waxaan rajaynayaa mar dhowna inay abqaale iyo boocam ay balaamin doonaan waxaas aan u samaynayno waxa waaye waajibaadka dastuuriga inaan gudanno ummaddeenna inaan u shaqayno cid aan ummaddan cadow ku ahayn annagu cadow kuma nihin cidna duulaan kuma nihin derisnimo wanaag iyo wada hadal iyo wanaag ayaan ummadda soomaaliyeed la doonaynaa iyo dowlad soomaaliyeed oo isku xiran oo mid ah oo meel u wada jeedda oo cadowga guud ee soomaaliya iska dhicisa taas waxaa weeye waa meeshaan u soconnay waa meeshaan naf iyo maal ku soo weynay waa meeshaan weli u taagannahay oo sii wadi doonna haddii ilaahay idinka dhigo waxaan inoo wada rajaynayaa guul horumar iyo ku sugnaan dariiqiisa ku soconno oo marna uusan shaki naga gelin cid kasta oo rabta inay tashuush ku furto iyadu unbaa ku dhimanaysa haddaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda puntland isbeddelka dalkan aan ku wadno ee maamul ee ciidan ee maaliyadeed ee shaqaale ee horumar marna kama laaban doono cid kastoo isku dayda taasaan ii sheegaya waxaan filayaa واجب دستوري ودستور كنا فريو وواجب ديني ودين كانوا نفريسو وواجب إنساني وواجب أمضان إن قفوا بالمسؤولية سيدي تاعي ووجد يسوون قفوا كحمينين قفنا عن سيجارة ويجين وحال ربا واجب إلهي ونفري دستور ونفري ummadeenna wanaagsan ay nagu aamintay inaan fulino oo inaan ummaddeenna u shaqayno anigoo madaxweynaha inta iga hoosaysa waxaan khaadimiin iyo shaqaalo u nahay bulshada badan ee 4 milyan ee reer puntland waxaan rabnaa inaan u adeegno waxaan rabnaa inaan noloshooda kor qaadno waxaan rabnaa amnigooda inaan sugno waxaan rabnaa inaan cadaalad samayno cidda ugu horraysa hawsha gudanaysa waa ciidanka haddaan ciidan ku hubaysan akhlaaq ku hubaysan aqoon ku hubaysan sharci ku hubaysan kala dambayn iyo uusan jirin ummadda uma adeegi karto marka waxaan rajaynayaa in aan noqonno dad intaa ku sufooba aqoonta la siinaya qaata kala dambayn yeesha dulqaad u yeesha naxariis u yeesha ummaddooda waajibaadkooda ilaahay uga baqa oo si nadiifa u guta waxaan aad ugu kalsoonahay intii yarayd oo hadda isbeddelku socday waxaa muuqata isbeddel waxaa soo baxday saraakiil firfircoon waxaa soo baxday oo la kala bartay ciidamada kartidooda waxaa loo kala doortay haddo meesha ku kala fiican yihiin maanta waad arkayseenoo qaar baa kumaandoos ahaa qaar baa cayaaraha kala duwan ee maaragtay difaaca nafsiga ku fiicnaa
qaar baa weerarka iyo goobta ku fiicnaa qolo walba oo ciidan ah tababarka ay soo bandhigtay meel baa looga baahay waxaan rajaynayaa ciidamadaas kala duwan tababaradaas kala duwan isbarashadaas kala duwan ee qof walba meesha uu ku fiican yahay in loo horumariyo lagu xasdin la soo saaro qofka hogaamiyaha ah la tixgeliyo qofka kartida leh kor loo qaado moralkooda dadka hoggaanka ciidanka ku jira waxaasoo dhan waxay qayb ka noqon doontaa isbeddelka aan wadno waxaan aad ugu rajo weynahay isbeddelkan inuu guulaysto idinkana aad guulaysataan puntlandna ay guulaysato soomaaliya ay guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عدا
dhigtee isu dhalatay kala dhuumatay isu soo dhawo Somalay dhammaan dhehmada burtida dhagaha u furo maanta waa dhabtiyee isu dhalatay kala dhuumatay isu soo dhawo indhigiya naftaba dhulka loo huraa go'aan laga dhigtee isu dhalatay kala dhuumatay isu soo dhawo dhulka 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 iyo badaba barwaaqada dhextaalo eebe dhigay idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine dhulka 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 iyo badaba barwaaqada dhextaalo eebe dhigay idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine you dhadhami you dhadhami you dhadhami yu dhadhamin ka dhacso you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin you dhadhami you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin ka dhacso you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine you dhadhami you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin ka dhacso you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin you dhadhami you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin ka dhacso you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine idinkaw dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine ka dhacso you dhadhami you dhadhami ayu dhadhamin وحنهي نفسيه وحنهي نفسيه نعو قبوي من غي فرواضي سبته مدادي من الشباب لوبي نعصوكم عيسيقا نبردا قرصونيا معانقا هدينيا يقول بين أفضل نبض ما وداقي نعو قبوي من غي فرواضي فبلغوا نقادي من الشباب لوبي نعصوكم عيسيقا نبردا قرصونيا معانقا هدينيا يقول بين أفضل نبض ما وداقي
midarbaan horow galay niyadaydu waa meel midarbaan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro hallaayo ku nabadgeli midarbaan horow galay niyadaydu waa meel midarbaan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore mana soo habeen qudha nafisuma casheeye naaquudayaashii nacabkaan ilaasha haddii nabad la waayana dhan kastaba noqoto macasiga ma lidin helo naxariisna uma galo mana soo habeen qudha nafisuma casheeye naaquudayaashii nacabkaan ilaasha haddii nabad la waayana dhan kastaba noqoto macasiga ma lidin helo naxariisna uma galo midarbaan horow galay niyadaydu waa meel midarbaan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli midarbaan horow galay niyadaydu waa meel midarbaan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore
rasaas sumciyo gantaar gumuciyo rasaas